xaflad qalin jabin ah oo si weyn looga agaasimay ayaa ka dhacday xeryaha qaxootiga ee Dadaab qaasatan xerada Dhagaxle. xafladan ayaa lagu qabtay hoolka weyn ee Girls Sports Center ee xerada Dhagaxle. xafladan ayaa waxa ka qalin jabiyay ku dhawaad 40 arday oo baratay mihnada saxaafadda iyo sameynta filimada. waxa kale oo ardaydan la guddoonsiiyay shahaadooyin taasoo ay bixinaysay hay'adda Film Aid. dhanka kale xafladan ayaa waxa ka soo qayb galay saraakiil matalaya hay'adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha Dadaab ay ugu horeyso hay'adda qaramada midoobe ee u qaabilsan qaxootiga iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. sidoo kale waxa xafladda ka soo qayb galay fanaanka daada yar ee Xasan Gantaal oo ay hay'adda Film Aid ku casuumtay xafladda loo qabanayay ardaydii qalin jabinaysay. ugu horeyntii waxa hadallo kooban ka soo jeediyay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ka soo qayb galay xafladda waxaana hadalladoodii ka mid ahaa And we look forward to seeing your successful career. So congratulations. First of all, let me congratulate the student. I'm very happy for you. I will just tell you some words regarding your training, regarding the importance of what you have done. You should be very proud about these 2-year courses you have gone through. You have made a very good choice. What you have learned is very important nowadays. The collaboration that we've had with you is really the start of your work as members of the communication community, of the media, to properly inform communities of what they need to know about, to share the news, to bring stories, to share your stories, and that you can be partners in letting the world know the voices of the people that come from Dadaab and to represent the voices of people that are in displacement. And so we're here to support you and to continue collaborating. You're now joining the side of professionals to do the work with us, so we look forward to having you on the side. And on behalf of all agencies in Dhagaxle, I want to welcome everybody. Feel at home. And so everybody, let's enjoy, let's have fun, but also be ready to learn from the activities that Film Aid has prepared for us. So welcome all of you on board. dhinaca kale ardayda ka qalin jabinaysay barashada saxaafadda ayaa iyaguna dareenkooda ka hadlay waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida tan wallahi aad u faraxsanahay ma sha Allah inta ku jirto wallahi ashara aad u barto afaydi nimada iyo magacaygu waa Nuur Cabdullaahi waxaan ka qalin jabiyay barashada saxaafadda ama cilmiga saxaafadda si loo qaato waxaan ku suganahay xarada qaxootiga Dhagaxle dareenkaygu runtii aad ayaan u faraxsanahay ma la soo koobi karo waxaan soo barinay muddo 2 sano ah ayaan maanta qalin jabiyay marka aad ayaan u faraxsanahay dareenkayguna waa zaid intaan galaaska ku jiray waxyaalo fara badan oo halkan aan ku soo koobi karin ayaan ka faa'iiday waxaa ka mid ah qaybta filmmaking sida loo duubo filimada qaybta photography sida sawiraanta loo qaado qaybta qoraalka script writers sida loo qoro warbixinada iyo waxyaalo fara badan oo aad muhiim ah oo noloshaydana saameyn aad ku leh ayaan ka bartay intaan baranayo cilmiga saxaafadda waxaana garab iga siiyay hay'adda Film Aid maahan markii ugu horeysay arday ay ka qalin jabiyaan xeryaha Dadaab kuwaas oo bartay mihnada saxaafadda iyo sameynta filimada. Amran Cabdiraxmaan Maxamed, Horseed TV, xeryaha Dadaab.